booliska dalka India ayaa gacanta waxa ay ku soo dhigeen haweeney kaadi ku dareysay cunto ay karinaysay kana mid ahayd haweenka cuntooyinka ku iibiya wadooyinka dalka India. Intaan ugu gudagalnay sheekadan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo birto maasanid. Saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waxa baraha bulshada qabsatay digniinka soo baxday dawladda India oo ku saabsanayd dadka cuntooyinka ku kariya wadooyinka dalkaasi. waxayna dawladda India ku hanjabtay in ganaaxyo lacageed laga qaadayo qofkii lagu arko isaga oo cuntooyinka ku daraya waxyaabo aan u fiicnayn caafimaadka bini'aadanka. inta badan dadka India cuntooyinka ku sameeya wadooyinka ayaa waxa la sheegaa in ay ku daraan candhuuf, kaadi iyo waxyaabo kale oo aan u fiicnayn caafimaadka qofka. sidoo kale arintan ayaa waxa ay wisiis badan ka abuurtay ama la labo ku tilmaamay dadka baraha bulshada ka daawada dadka cuntooyinkan ka iibsanaya wadooyinka dalka India. xisbiga xukuumaha India ee loo soo gaabiyo BJP ayaa ku dhawaaqay in ay soo rogeen ganaaxyo culus iyo xabsiyo ay wajihi karaan dadka cuntada kariya ee ku sugan labadan gobol ee uu xisbigu ka taliyo. xisbiga ayaa tilmaamay in dadka sameeya cuntooyinka ay ku wasaqeeyaan waxyaabo ay ka mid yihiin candhuuf, kaadi iyo waxyaabo kale oo caafimaadka iyo nadaafadda halis ku ah. labada gobol ee uu xisbigan ka taliyo ayaa waxa ay ku yaalaan waqooyiga dalka India, waxaana lagu ganaaxayaa qofka lagu arko falkan mid la mid ah 100,000 oo rubaas una dhiganta $190 si looga hortago waxna looga qabto. waxa lagu tilmaamay in ay ka hor imaanayaan caafimaadka iyo nadaafadda qofka. awaamirta dawladda ayaa daba socota faahfaahin muuqaal aan la xaqiijin ee baraha bulshada qabsaday oo muujinaya dadka cuntooyinka ku sameeya hareeraha wadooyinka iyo maqaayadaha yaryar oo candhuuf ku tufaya cuntada ay karinayaan. muuqaalada ayaa caro ka abuuray baraha bulshada, iyagoona qaar badan oo ka mid ah dadkan ay walaac ka muujiyeen badqabka caafimaad ee cuntada labadan gobol. muuqaal ka mid ah kuwa aadka u faafay ayaa la sheegay in haweeney ay kaadi ku dartay cunto ay karinaysay, waxaana markii hore lagu sheegay in ay tahay Muslim, balse booliska ayaa markii dambe waxay aqoonsadeen in ay tahay Hindu. haweeneydan wargeyska lagu magacaabo Indian Express ayaa dhaleeceeyay qawaaniinta laga soo saaray labadan gobol, waxa ayna arintan ku tilmaameen mid lagu beegsanayo dadka tirada yar oo aan markii horeba amni haysan. caadooyinka cuntada ayaa mowduuc xasaasi ah ka ah dalka India, waxaana jira dhaqamo kala duwan oo salka ku haya diimo iyo nidaam dalkaasi u yaala. marar kala duwan ayaa waxaa dalkaasi ka dhacay isku dhacyo u dhaxeeya bulshooyinka kuwaas oo la xiriira dhaqanka iyo cunnada. hay-adda badbaadada cunnada ee magaceeda loo soo gaabiyo FSSAI ayaa cuntada aan badbaadada lahayn ku tilmaamtay in ay keenayso tiro badan oo caabuq ah iyo 400,000 oo dhimasho ah sanadkiiba. khubarada ayaa soo xiganaya sababo kala duwan oo la xiriira badbaado la'aanta cuntada dalkaasi oo ay ka mid yihiin in aysan jirin dhaqangelin ku filan oo dhanka shuruucda ah, wacyigelin la'aan goobaha lagu kariyo cuntada oo aad ciriiri u ah, suxuunta ama maacuunta oo ah kuwo wasakhaysan, iyo biyaha la isticmaalayo oo iyaguna wasakhaysan. kadib muuqaaladii muran ka dhaliyay ee ka faafay mid ka mid ah gobolada ku yaala dalka India ayaa lagu dhawaaqay ganaaxyo culus oo qabanaya dadka lagu helo dambiyada noocan oo kale ah. sidoo kale booliska waxa ay dabagal ku sameeyeen shaqaalaha hoteelada iyo in CCTV-yada lagu xiro madbaqyada ama jikooyinka. mid ka mid ah wasaaradaha gobolkan ku yaala ayaa waxa ay sheegtay in ay joojiyeen dhacdooyinka noocan oo kale ah, booliskana ay xaqiijiyeen shaqaale kasta. gobolkan ayaa sidoo kale qasab ka dhigaya in xarumaha cuntada lagu soo bandhigo magacyada milkiilayaashooda, cunto kariyaasha iyo kuwa dalabka qaadayaba ay xirtaan af-xir iyo sidoo kale galoofisyo. sidoo kale in kaamirado lagu xiro goob kasta oo laga helo cuntooyinka wadooyinka.